ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا عبد الوهاب يوسف وارتيسكا كدا وطان صورات من نص بندقة يو باشكن جاليري دار دي جيبوتي waxaan inuu soo bandhigayaa sawir gacmeedka sidiisaba marka la dhameeyo run ahaantii aad dhamaysid sawirkaasi sida uu amba ha yaraado amba ha weynaado waxa weeyaan waa nooca loo yaqaano abstract weeyaan ee adduunyada imika si caana adduunyada ugu caan baxay waxaa muhiimadu tahay markaad dhamaysid sawirkaasi uu engego waxaa la mariyaa varnish baa la mariyaa varnishka baa la mariyaa varnishkaasi wuxuu protection buu leeyahay quruxna buu leeyahay wuxuu ka ilaalinayaa temperatureka hadhow toole sawirkan haddii meel qabow la dhigo wuu protejinayaa hadduu roob ku do wuu protejinayaa haddii uu maaragtay meel kulul la dhigo wuu protejinayaa markaasi waxa weeyaan waa sidii bac baa dul saaran oo kale marka varnishku waxa weeyin waa liquid weeyaan dhulkeena waa laga isticmaalaa marka waa liquidka waa sida saliid oo kale markaasi waxaad marinaysaa sawirkii baad marinaysaa waxa weeyaan waa inuu varnishka aada marinaysid waa inuu noqdaa mid caddaana dhulkeena wuu jiraa Djibouti oo maaragtay dadka maaragtay meebelada sameeya ayaa yaqaana laakiin nooc loogu talagalay xagga sawir gacmeedka ayaa jira markaasi wuxuu sameynayaa hadhow toole wuxuu noqonayaa inay bacdo saaran tahay oo kale amba muraayad oo kale inay saaran tahay oo kale iyaad moodeysaa marka wuu dhalaalayaa markaasi wuxuu noqon doonaa iminka faraq weyn baa u dhexeeya markii hore iyo iminka baalkii wuxuu noqday marka varnishku deg deg baa loo mariyaa deg degna wuu engegaa wuxuu meelaha 2 minute 3 minute ayuu ku engegayaa waxaana loogu talagalay dee shaqooyinka raafidkii horey inaan horey loo sameeyo uu horey u engego markaasi akhiritaanka waxaynu tusi doonaa isagoo gidaarka suran quruxdiisa markaa walaalayaal waxa weeyaan waa technology cusub weeyaan oo baryahan dambe soo baxay oo maaragtay lagu qurxiyo artiga marka aada samaysid markaasi waxa weeyaan protection weyn buu yeelanayaa kaasi waan dhameeyey waa xaggaasaan iska dhigayaa markaa ku kale oo lamaanihiisa oon u talagalay baan soo dhigayaa isagoo xoogaa uu ka yar duwan yahay kuleerka kani waxa weeyaan sawirkan waxaan ugu talagalay waxaan u baxshay lag casaal baan u baxshay waxaa ku qoran waxaa ku qoran xaggan maaragtay cali sabiix baa ku qoran
waxaa ku qoran maaragtay ubuk baa ku qoran, tajora baa ku qoran, the wonder of Djibouti baa ku qoran, dekhel baa ku qoran, carta baa ku qoran. markaasi waa sawir aan ugu talagalay maaragtay the wonder of Djibouti, waxa weeyaan maaragtay mucjisooyinka Djibouti. marka mucjisooyinka Djibouti waxaa ka mid ah Lagape iyo Lag Asal ayaa ka mid ah. markaasi sawirkan sida qudhadiisa waa kan alaabta, yacni waxa weeyaan shirkad walba dee si gaaray usoo habaysaa. markaasi waa wax maaragtay hadhow toole markaad meesha sudhid aada moodaysid inuu muraayadi ay ka sarreyso sawirkii. waa varnish weeyaan, varnish baad marinaysaa. markaasi waxaana protection buuna u yeelayaa. sawirkaasi wuxuu jirayaa sanado badan buu jirayaa, ilamaa maaragtay haddii la ilaaliyo 1,000 sano wuu jirayaa. balse waxaa maanta waxaa talyaaniga yaalla sawiro badan oo ilaa 800 oo sano jiray ayaa talyaaniga yaalla, oo maaragtay dalka Masar waxaa yaalla sawiro yaalla 4,700 oo sannadood. marka hal abuurka farshaxanku waa uu ka horeeya hal abuurka sugaanta. maanta hees lama helaayo hees 4,700 oo sannadood jirtay, laakiin sawir gacmeed la sameeyey 4,700 oo sannadood waa laga helayaa Masar iyo Greegta iyo waa laga helayaa. marka hal abuurka sawir gacmeedku waa qadiimi weeyaan, inay dadku bartaan. teknolojiyadan cusubna waa teknolojiyad maaragtay loogu talagalay in maaragtay dadku markay artiga iibiyaan, waxa weeyaan saliidani varnish waxay ka protegeynaysaa siigada, waxay ka protegeynaysaa kulaylka, waxay ka protegeynaysaa qabowga, waxay ka protegeynaysaa haddii uu dhulgariir hadduu dhaco oo maaragtay wax kusoo dumaan hadhow toole si wax loo hagaajinayo. haddii maaragtay waxa keliya aad ka celin karaynin waa dab, laakiin waxa kale oo dhan xitaa biyo haddii uu ku dhex dhaco maaragtay waa bacbaa ka sarreysa, waxama noqonayo. iminka varnishkan wuxuu noqonayaa sidii bacay ka sarreysa oo kale, oo maaragtay biyuhu ma galayaan. ilaan wuxuu maru ka samaysan yahay tabloogu wuxuu ka samaysan yahay maruu ka samaysan yahay xaggiisa dambe. maradaa uu ka samaysan yahay ayaa maaragtay dee la ilaalinayaa, oo run ahaantii maaragtay maaragtay protection. markaas waxaa kaloo inu tusi doonaa markii aan gidaarka ku rakibay siduu u ekaado. yacni wuu ka duwan yahay 100% sawirka ahaan ma garanayo, laakiinse aragtida aan garab jooga iminka 100% wuu ka qurux badan yahay sidii hore. sawirkan aan gidaarka suli doonaa, markaa dabadeedna waa inu tusi doonaa siduu eegyahay. waayahay sawirku markii aan gidaarka suray sidaas u ekaaday. sawirkani waxaan u saaray Lagape. waxa weeyaan aad ka arkaysaa the wonder of Djibouti. markaasi waxaana ku saxeexan maaragtay magaalooyinkii iyo tuulooyinkii Djibouti sida maaragtay Dekhel, Cali Sabiix, Carta ayaa ku wada saxeexan. markaasi waa artiga abstraga Djibouti iyo siduu ula jaan qaadayo dunidan casriga ah ee iminka la joogo. markaasi sawirkaasi iminka varnish baan mariyey. markaasi wuu bacaysan yahay, weligii ma noqonayo maaragtay dab unbaa mooyaane
xitaa biyo wax ma yeelayaan, cadceed wax ma yeelayso. waa protection weyn buu haystaa ilaa maaragtay sawirkani haddii la ilaaliyo ilaa dhowr kun oo sannadood buu sidiisaan buu ahaanayaa. intaasaan kusoo koobayaa. nabadgelyo, ammaano allah.